السلام عليكم. وأنا السلامي دمان dadka Soomaaliyeed oo ku nool Edmonton waan markale Maxamed Akoodo in soo wargelinaya waxaan rabaa inaan maanta wax yar inii sheego intii muddo waxaan ku mashquulsanaa sidee ku dhici karto wax magaaladan waqti badan baan ku noolaa aniga iyo dad badan hawlo badan baan ka qabanaa oo waxtar u leh dunida dadkeena laakiin one thing oo aanan wax ka qaban wax weeyaan wax rasmaal ah oo aan dadka kale oo jeelka soo socda aan uga tagnay inuusan jirin oo ay ugu horeyso institutionno waxtar leh oo la wareegaya hawshii aan soo qabanay sida waxbarashada dhaqaalaha iyo cadaaladda anigu koleyba waxaan aad ugu mashquulsanaan jiray inaanu helo cadaalad dadkeena u helo meeshaan saad ogtihiin sharci baa ka jira wax kugu xadgudbana waayi mayse markii lagugu xadgudbo waxaad u baahan tahay inaad sharciga la tiigsatid dhibaatada meeshaan ka jirta waxa way sharciga wuxuu ku xiran yahay dhaqaalo taas oo aan intani badan aan haysan dad annaga oo arrinta ku takhasusana ma lihin marka taas waxay keentay in dad badan annaga naga mid ah lagu xadgudbo xuquuqdooda lagu tunto ama shaqo ha noqoto ama booliis ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama waxyaalo badan oo aysan awood u heli karinin inay ka dhiidhiyaan ama xaqooda ay dhacsadaan sababtoo ah waa arrin aad u adag sidaad xaqaaga kusoo dhacsataa anigu waxaan soo arkay ama aan khibrad ahaan ku dirsay in dadka laba qaybood ay cadaaladda ku helaan mid inay sharci la tiigsadaan oo dadkaas dhaqaale leeyihiin oo loo yarkeeno inkastoo labada qoladii dhaqaale haysata ay ku guulaysato iyo in community ahaan cod ahaan inta isku biirsato ay xaqooda saa ugu raashaan qofkii markaas laga xaqdaray ama community lagaga xaqdarnaado oo si general ah nolol kaga xaqdarnaado ama si shakhsiyan ah looga xaqdarnaado xaqooda lagu tunto labadaasba waxaad moodaa inaan anagu wali helin maadaama aanan loo yaro lahayn annaga waddanka dadkeena u dhashay dhaqaalo badanna aanan helin oo dadkeenuba dad iska yaa maaragtay dhaqaalaha maaragtay aad ugu liito dhaqaalahooda u yaryahay waxay u badan tahay xaqooda oo saameyn intooda badan laga yaabo inay ku yeelato future-kooda inaysan tabar u helin aniga waagan 2008 aan gobolkan kusoo laabtay inkastoo waxoogaa ka maqnaa waxaan imid iyadoo dhallinyaradeena magaalada lagu laayo laakiin booliisku uusan waxba ka qaban waxaan u imid iyadoo ciyaalkayga la qaato oo aan maaragtay deer u hadiyin waxaan imid iyadoo ilmaha iskuullada lagu xadgudbo oo inta la qaato la yiraahdo ilmaha halkan ku dhashay oo aan u baahnayn in loo turjumo ama waddankan ku dhasho Kanadiyaana la yiraahdo Soomaali baa tahay marka arrimahaas oo dhan waxay noqotay arrimo saameyn weyn ku yeesha ummadayda siiba dadka dhalinyarada arrintaas waxay nagu qasabtay inaan codkayga kor u qaadno inaanu ka dhiidhino inaanu ku samayno inkastoo tii iskuulka iyo tii ilmahaba aanu xal u helay waxaa weli taagan oo aad noogu adag oo annaga kaliya maahna dad badan ala qabaan oo community badan in booliiska aan xal loo helin oo sababta keentana ay tahay iyadoo dadkeenu ay u baahan yihiin arrintan booliisku waxay u baahan tahay arrin sustainable oo arrin waxa weeyaan dagaal joogto ah ama aad xuquuqdaada u gashay waa urur adag waxaan aad xoog ugu leh dadka caddaanka ah weliba dadka cunturiyiinta ah xoog ugu leh marka haddii aan adiga community-ga lagaaga baqaynin waxa weeyaan cid kala jecel ma leh saad ogtiin maalin dhaweyto ninka chiefka ah wuxuu tagay Jerusalem buu tagay
وإسرائيليين تا أويرت markii la weydiinay wuxuu yiraahdeen man waxa rabay inaan wax ka soo barto oo maxaa maanta laga bartaa yahuuda waxa laga bartaa cunsurnimo iyo xasuuq labadaas baa laga bartaa dad badan baa ka dhiidiyay laakiin dadkeena I don't know inay ka yeelan kolay anigu waan waraaqan ka qoray laakiin inaga dadkeenu waxa laga yaabaa aysan ba ogeynba haddaba wagaagaas waxaan isku daynaa inaan ururo advocacy oo inoo doodo xuquuqdeena inaanu samayno waxaa dhacday marka xilligaas waqtigaa jiray in gabar cadaan aan maaragtay ay ila kaalmaysay inaan abuurno urur aan Soomaali magaceeda ku maaragtay lagu qoray laakiin urur la garanayo cidda u dooday ururkaas oo magaciisa lala bixin markii aan u bixinay Black Muslim Men ururkaas wax wadan buu ila qabtay uu ila dooday gabadhaas dad badan marka cadaan nagu soo jabay oo arrintii ila qaatay maadaama marka dad cadaan ay yimaadeen Soomaaliduna aysan ba ila qaadana inta badan bay u arkahayeen inaan anigu maxaa la yiraahdaa aysan habooneen in maaragtay aan soo jiito attention sababta marka xuquuqda u doorato waxa soo jiidanaysaa attention-ka oo siiba dawladda ama dad cunsuriyinta labadaba waa soo jiidanaysaa dad badan oo dadka ka mid ahaa baan igu raacsaneen oo mararka qaarkood igu hor imaanayay inkastoo gadaal dadkii ay ka fahmeen wixii aan ka dhawaaqayay faa'iidadeeda ay arkeen markaas ii mahad celiyeen laakiin maxay kuugu taallaa waxaan arrinteeda ku nisbeeyay arrintii uu Allahu naxariistay gaaci uu yiri Soomaali aasi og oo wuxuu yiri markaa dhimatid bay ku amaanayaan laakiin taan nooshahay marnaba kuma mahad celinay marka taas waan arkay laakiin anigu hadda uma ceelko ururkii markii dambe waxaa magaciisa u bedelnay Edmonton Coalition Justice Human Rights kabacdi ururkii waa sii ballaartay dad badan oo ajnabi ah baa ka soo qayb galay waxay noqotay Edmonton inaan ka tuurno la yiraahdo Coalition Justice baan ku daray iyo Human Rights so Coalition for Justice and Human Rights la baxay Edmonton buuna ka abuulan yahay urur fiican leh maxaa la yiraahdaa charity number dad members badan leh magaciisu galay diiwaan galay laakiin challenge-ka dhacday waxay tahay 2019 iyo wixii ka dambeeyay anigu waxaan ahaa in active taa waxay keentay marka in ururkii uu u dheeliyo dhinaca cadaanka oo ay u doodaan waxyaalo annaga aanan marka u arkaynin priority sida homeless-ka iyo albaysenka iyo social justice-ka iyo arrimaha qowmuluudka la xiriira iyo waxyaalahaas bay u janjeereen marka ururkii aan dhawaytaan soo laabtay oo laygu casuumay meel fundraising ka sameyn ururkii haddaan baa la wareegay oo arrintii u dhaqan galay ururkii saas ahaa waa layga casuumay maalinta hameenkaas November 4th bay last year waxaa yimid dad aan ku qiyaasay 300 qof oo magaalada hoosku ah ama dhinaca oo badanaa ay ka shaqeeyaan dhinaca looga iyo lawyer badan iyo dhinaca legalka waxaa ka qayb galay aniga wax madow ah aniga iyo gabar Kenyan oo nin cadaan ah ururkii saas ahaa faraha maartay footnote-kaygu ma ku jiro aniga gabadhii waan nimid 2-3 qoftii aan ku aasaasnay idayba iskama kaay weydiin marka ururkii lacag bay u raise gareeyeen lawyer iyo judge iyo waxyaasa ka soo qayb galay lacag dhan 150,000 bay raise gareysteen aniga dib baan ugu laabtay waxaan dareemay ururkii aan ku aasaasnay magacaaga oo dhiigayga aan ku aasaasnay in maanta uu dhinac dad kale u wareego innagana ay wali xuquuqdayadii maalin walba lagu xadgudbo ama ha noqoto housing-ka ama ha noqoto shaqaalaha ama ha noqoto booliiska ama ha noqoto everywhere haddana aysan jirin ururkii uusan u shaqaynayn markaasaan dareemay waxaana laygu yiri haddee dhaqaalaha annagu aan dawladda ka qaadanayna ma jiro annaga bakadkayga ka maalgelina haddaa rabtaan inaa arrintaan nala qaabataan welcome baan naga yiri
arrintu waxay noqotay inaan boorka dib ugu soo laabto ka codsado in anti maartay xafiis gaar oo la dhilgaray Afrikaanka in la abuuro laakiin laba condition baa lagu xiraa laba condition ka lagu xiraa waxa weeye in idinku aad dadkiina keensataan iyo dhaqaalahooda inaad raise garaysaan halkan soo socdo waa halkaas weeyaan inaad keensataan dadkii inay maartay in kaga shaqeyn lahaa xafiiska xafiiskiina idinku abuurataan magaci waa inay sidanayna baa la yiri waa ka qayb qaadanaynaa waa ururka magaciisa baad wadanaysaa laakiin waa inaad raise garaysaan tii hore way iga yeeleen application baan qoray waa laga yeeray in xafiiska la furo arbacada oo beriyana waxaa meetingkii ah inaan fundraisingkii aan sameyn la qorshihiisa la imaado lacagta aan hadda maanta ugu talagalay initialka oo aan isjeclay halka qofka ugu horeeyo oo Soomaaliga oo dhalinyaro ah oo aan ka shaqeyn doono waxay ugu qaadanaysaa 75,000 oo Canadian baa laga rabaa inaan raise gareeyo hadda ilaa iyo inta soo socoto iyo inaan keeno qof community-gi dhex gala oo arrinteedii dhaqaalaheeda hadday noqoto arrimaheeda abaabulkeeda hadday noqoto qofkaas kaliis waxaan qaban karaa laakiin abaabul buu sameynaya si codkeena u mideyno oo aan xaqeen ugu raasino wixii gaar ah iyo wixii guud haddaba waxaan ka codsanayaa in horta u dhagan nuglaataan in arrintaas oo socoto mideeda kale waan rabaa inay noqotona waa dhaxalgal oo ah inaan dadkeena uga tagno dhaxal legacy oo ay la wareegaan dadka dhalay waxa ka dhacay Minneapolis way ka dhacayaan halkan hadda ay socdaan oo hadda waad aragteen petition baa ka socda la rabo in dadka xuquuqdooda lagu doodsiyo taa kama aynu warqabno inagu magaalada weynu deganna haddaba waxaynu u baahannahay urur iyo xafiis arrimaha inaga naqoseeya oo naga qoseeya dawladda xuquuqdeedana ku tumanaya inaynu u helo oo dhan ka wareega oo laba ah inaynu u dhagan nuglaano si aynu uga ogaano waxa ka socda magaalada qof noo soo wariya qof noo abaabula iyo qofkii dib ku yimaada maxaa la yiraahdaa u abaabula dadka ma aha iyadoo inay wax ka qabanayso laakiin u abaabula fundraising sameeya dadka ka qayb qaata iyo dadka dhalinyarada oo soo socda wadankan ama ku koray ama ku dhashay oo aan wadan kala aqoonin anagoo listi Canadian Somalis baan nahay laakiin Somali Canadian Somalis anagu Somali Canadian baan nahay Somali baan nahay Canadian noqday la naturalize galay laakiin qofka halkan ku dhashay ama ku koray waa Canadian Somalis dadkaas aan rabnaa inay la wareegaan xilkan oo wixii aan soo qabanay ay la haraan xafiisyo badan baa hadda jira oo ma sha Allah oo service-kii bixiya maxaa la yiraahdaa haba iska tabar yaraadeen laakiin at least waxbaa socda waxaan rabnaa marka laba arrimood oo arrinteena muhiim u ah waxa weeyaan inaan horumarkeena xafiiskuna ka shaqeeyo cadaaladdeena iyo xuquuqdeedana aan ku raadsano ururka waxaa la yiraahdaa Coalition for Justice and Human Rights baa la yiraahdaa laakiin departmentiga aan rabno inaan anagu maal gashano oo aynu ka shaqeyno waxaa la yiraahdaa anti-racism and anti-oppression labadaas baan xooga saarayna wixii kale oo yimaada waa laakiin anti-racism iyo anti-oppression oppression waxa keenaya waxa weeyaan cadaadiska soo ma fahmin cadaadiskaas waa mid riyaa wada adigu aad aragtid iyo aad aragtid anti-racism taas ka wada hadlayna mideeda kale maalintii dhaweyto aan arrintu ka dhacaysay Minneapolis nin kamid ah state ku jira MLA oo ka yahay representative ka ah oo aan malaynayo Maxamed Nuur in la yiraahdo baa wuxuu yiri dagaalkan hadda ku jirno waxaan moodaa inayna anagu garwadeen ka ahayn soo waa inaan si aynu garwadeen ka noqono waa inaynu dhaqaalaheena raise gareyno inagu abuurana taas oo kale baan u baahanahay halkan inaynu yeelano xafiis inagu maalgelino oo arrimaha inaga gaar nooga oo naga xiran wadankan hadday noqoto cadaadis iyo hadday noqoto resistance aynu maartay xuquuqdeena ku raadsano haddaba waxaan maanta inta halkan maartay kaga soo jeedinayaa in arrinta loo dhagan nuglaado lagana qala qayb qaato isnood maaha waxaan anagu rabaa inaan anu ka qayb qaato waxaan jeclahay in dhalinyarada soo socota jiilka soo socota ay la wareegaan
xilkoodii oo aysan noqonin dad ku baraarugo sida Minneapolis oo kale inay sugaan waqtiga iyaga dib lagu keeno wadankan history buu leeyahay historygiisuna maaragtay history fiican ma morally ma leh halbeysteenka iyo aragtay wax lagu sameeynaya Palestiniinta waa arag moral ma leh waxay yaqaanaan wixii sharci iyo shantaada calaacada ku qaadatay ma ahan dagaal laakiin waxa weeye sharci bay leeyihiin waana shantaadana waa ku qaadanaysaa haddaba saasaan rabaa inaan martay la waraago qof kasta oo adduunka ku nool oo Soomaaliya ama Soomaaliya ha joogo ama dibadda ha joogo waa arrin sida anaga noo qosayso u qosayso wax ka socda Soomaaliya waa aragnaa gabar baa waxay ku hadashay kaliya war waxaan rabaa inaan gabadha anigu sida gabadhaadu madaxweyne u nooshahay inaan u noolaado waxay rabtaan rabaa baa maanta ay ku xiran tahay maxkamad lagu soo taagaya waana Soomaaliya ugu Soomaaliya fahmi oo muslim oo aan rajeynayno iska badaawa Palestiniinta iyo meel kale iska badaawa Uyghurka iyo haddaba waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo inay muhiim tahay inaynu arrintaa u diyaar garowno laba inaynu ku noolaano wadankan sidii dadka ku nool aan u noolaano third inaynu inagu maal gashano wixii inaga u baahanahay oo aynu ku soo ceshan karno wixii maartay ayna xaq u leenahay dhaqan iyo dhaqaale iyo justice iyo wax walba si jiilkayaga ama jiilka hadda nool ama jiilalka soo socda ay wadankan xuquuqdoodana ku dhacsadaan iskuna daafacaan waa arrin muhiim arrintaana waxay qosaysaa dadka waaridka ama dadka waayeelka ahaada oo raba inay dadka dhalinyarada wax uga tagaan ama dadka dhalinyarada hadda reeraha kule ama jiilka kale oo hadda high schoolka iyo jaamacadaha ku jira intaasay qosaysaa wax gaar qofku ah maaha waana waxaan rabaa in dadkaygu ku baraarugaan anigu waxaan ogahay inaan noqonayn Chinese iyo Mexican iyo meel kale noqonayn Soomaali baan ahay waan ku gowracanahay waxay khasab inay tahay inaan noolaado madow iyo muslimkana wax la qaybsan dadka madowga ah iyo dadka maxaa la yiraahdaa muslimka aan la wadaagno labaduba isku danna manihi isku danna waana way fantamale sheekadooda iyo arrimahooduna waa arrimo u baahan in gaar loo arko danta naga wada dhaxaysan nimanka muslimka iyo waxa naga dhaxayn iyo dadka madowga waxa naga dhaxeeyay iyo waxa naga dhaxayn maanta cid kasta anagana fiirinaysa laakiin waxa weeyaan waxa naloo arkaa dad giant iska hurda oo inkastoo danigu u jiro oo dadna daniyaan haddana waxa weeyaan waa arrin u baahan inaynu maartay attention-keena siino maantana aanu istaagno haddii lahayno haddaba wixii tala iyo tusaaleyna kuleyba information-keyga xajaladan ku soo bandhigaya dadka arrintan khuseysana dee qofkii ay khuseyso waa qofkii isagu dareen kale awogay baa wuxuu oran jiray ilaahay oo dareenka igu jira ilmahayga geliya haduusan ayagu aysan galayna aniga iga qaada anu ma oran ilaahay iga qaada dareenka laakiin ilaahay waxaan rajeynayaa in dadkayga dareenkaas u galaan oo ay dareemaan arrinta khatarta ah oo na soo foosaaray ama hadda ku dhex jirno sidii maartay aanu uga gaashaaman lahayn dadkaan la noolnahayna waa dad aan wax naga dhexeeya jirin marka si xuquuqdeena aan ku dhacsano waa arrin u baahan inaynu isu taagno jeebkeena gacanta gelino inagu aynu qof dad dhalinyaro oo inagu aynu u xilsaarano gadaalna ka istaagno oo aan u istaagno maalin dhaweyto gabadhii bal inaysan more line can you imagine saddex ilmo gabar hooya oo saddex ilmood ku dhashay wadanka بلين ودن كوا كسارين علمهنا وكذا علمه ومحجب علمها ما وحقات أما كذا مورا لإني سامحين هالكاسات كأركيسة لكن أنا جيب أسوي استاجنا والله بنام بحي وحباك ما يسوروي وحكلوا وقاهين إن أنا صمينا هذا بس حسبان سبحانه غفر الله معنا يسيرته لكن وحى كفي عن إن أدي الجرو مشان ما هنمر هالمر إنسدي emotional إن لك عنه intaan la kacno inaan soo baraarugno waxa loo baahan yahay inaan qorshe iyo si habaysan aad arrintan ugu jahdid oo aad every day arrinta una toog haysid wana shaqaysid khasarna ma aha wax dhibaato inaad toog haysid wax wanaagad hor u marin kartaa hadaba waxaan in ku soo gabagabeynayaa walaalayaal arrinta lagu baraarugo loo istaago hana loo qumo intaasaan rabaa inaan la sheego wixii dambe aan maartay gadaal ka soo sameynay waqtiga iyo habka nimankii ururkii baan waxaan rabaa inaan hadda ka dhaadhasiyo habkii fariiso loo sameyn lahaa hadhowna waxay noqonaysaa inaynu maartay qof u qalma oo arrintan ugu horeysa gabar iyo wiilba
inaynu maaragtay interview uga qaadno si cadaalada oo aan jeclays lahayn arrintaana loo istaaga kabacdina noqdo qof lala shaqeeyo saasaan rabaa inay dhacdo haddaba inta aan mar labaad aan kulmi doono iyo mar saddexaad iyo mar afraad haddii ilaahay uu noo idmo sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.